على رسول الله بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مدحوين حسن الشيخ مدحويني هراء دلك أهنا قدوميها حزب UPD قدوميها حزب النبضة بروفيسور غاندي أهنا قدومي كحيان كمدشة قدوميها إليس حلدبان عبد القادر عصبلة هو قاميها حزب إليس أهنا حلدبان قدوميها حزب كولان عثمان حسن بهذا الصحافة ده فدان كتجميل قدوميها حزب هيمنا قرن سلمان حلبان سلمان بهذا الصحافة ده دمان وحلبان هذا شرفت الوعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام كدب waxaan rabaa inaan aad uga mahad celiyo xisbiyaasha qaran ee halkan taagan kalsoonida ay igu doorteen inaan hogaamiyo madashan qaran waxaan u ballan qaadaa insha Allah tabaaraka wa taala sida ugu wanaagsan oo hawsha la asteeyay loo gaari lahaa inaan hogaamiyo intaas markii aan ka gudbo waxaan rabaa inaan wax yar dul istaago asbaabta loo aasaasay madashan waxa la wada socotiin axsaabtu dalkeena xilli dheer kama jirto laakiin haddana waxaa loo aasaasay inay abuuraan jawi siyaasadeed oo lagu tartamo oo ku dhisan nidaam is-ixtiraam iyo dimuqraadiyad ku dhisana si looga gudbo marxaladda adag ee 4.5ka loona gaaro marxalad baahsan ee asaaskeedu yahay dadku inay isu raacaan aragti siyaasadeed ayadoo taasu ay jirto oo cid kastaba ay ku mashquulsan tahay ama xisbi kasta oo ku mashquulsan yahay waxyaabihii loo aasaasay haddana waxaa soo baxday in uusan jirin waxa aan ka hadlayno inaysan muuqaninba doorashadii waxa ka dhiman sanad iyo in yar ilaa hadda ma muuqato nidaamka doorashada ku gali doono ma jirto xurriyaad axsaabta siyaasadeed iyo dadka Soomaaliyeed ay ku dhaqdhaqaaqi karaan oo ay ku guda karaan waajibaadkooda qaran waxaa la socotiin magaalada Muqdisho hadii la damcayn wax laga sameeyo waa in dawladda fasax ka hesho arintaasna waxay ka soo horjeedaa dastuurka waa غير dastuuri axsaabta siyaasadeed iyo qof kasta Soomaaliya dastuurku wuxuu xaq u siinayaa inuu meesha uu doono iyo cidda uu doono iyo waqtiga uu doono inuu qabsan karo shir madashan waa ogtihiin aragtidaas ay xambaarsan tahay oo ah dadka Soomaaliyeed inay helaan nidaam cadaalad ah waxyaabay u taaganta waxa kamid ah space-kaas in la helo qofka Soomaaliga inuu helo xurriyadiisa iyo xuquuqdiisa waxna waa ra'sumaal waxna waa sharaf walaalka ama walaasha sharaf waa ku leedahay laakiin hadaa ka weysamo weydii kartid laakiin xuquuqdaada iyo xurriyaadkaaga kama tanaasuli kartid waxaan wada ognahay dalkan asbaabta uu burburay xuquuq iyo xurriyad la waayay waxa uu burburay ku takrifal awoodeed qofka la aamino ee lagu aamino xil qaran ee u adeegsada awoodiisa si khaldan ee ku dhibaateeya dadka kale waxa ay dhalinayso waa naqaan nasiib darro 30 sano kadib inaan wali afkaartii xambaarsanahay waa arin aan lagu farxin waxaan hubaa dadka Soomaaliyeed dawladnimada inay jecel yihiin waana tan keentay dulqaadka ilaa maanta ay dul qaadanayaan waa tan keentay bisaylka maanta xisbiyadu intay isugu yimaadaan ra'yi urursan ay ku waajahaan arintaas dadku waxay yiraahdaan xurriyadka iyo xuquuqda la isma siiyaa wala soo qaataa annagu hadda maanta waxaan u arkaynaa si practical waxaan filayna runtii qof walba Soomaali inuu xurriyadiisa iyo xuquuqdiisa dood la'aan helo laakiin waxaan noo muuqata inaan u baahanaa mar kale inaan u istaagno xuquuqdeena iyo xurriyaadkeena mas'uuliyaduna waxay saaran tahay cid qayb ka geysan karta xisbiyada madasha qaran waxay u taagayeen horta kow arintaas dadku xuquuqdooda iyo xurriyaadkooda inay helaan laba waxay u taagan yihiin in dawladdu ay ku dhaqanto sharciga oo Soomaaliya laga hirgeliyo waxa la yiraahdo
sarraynta sharciga ummad waxaa lagu ixtiraamaa sharcigeeda sida uu yaalo xuquuqda uu bixinaa iyo sida ay ugu dhaqmaan dastuurkii yaraaya aan qorannay oo ku meel gaarka ahay haddii meel la iska dhigay waxaan u malaynaa arrintaas inay qof kastoo Soomaaliya waajib uga dhigayso inuu u istaago si dastuurka loogu soo celin lahaa positionkiisa halkaas waxaan rabaa wax yar inaan ka jaleeco nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam oo aan huba inaan wada jecelnahay Madiina markuu tagay waxa deganay Madiino niman la yiraahdo mushrikiin oo waxba aaminsaneen ama waxba aaminsaneen ficlan laakiin diin rabbaaniya ma aaminsaneen oo kitaab samaawiya ma aaminsaneen waxa jooga nasaara waxa jooga yahuud waxa jooga muslimiin nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wuxuu u sameeyay wax la yiraahdo wathiqatul Madiina oo u dhiganta dastuurka ayuu u sameeyay oo qof walba Madiina degan xuquuq siinaysa aqligeena muslimiinta maanta jira iyo aqligaas aad ay u kala duwanaan meeshaas fiiriya qofka yahuudka qofka masiixiga qofka muslimka qofka mushriga waxay leeyihiin xuquuq siman oo madani ah 1440 iyo googo oo sano kadib annagoo muslimiina inaan ka doodno arrintaas ceebay noqoto adduunyada hore u martay waxay hore ugu martay hal shay bas inay dastuur leedahay dastuurkaasna ay raacaan horumarku ma aha xoog horumarku ma aha dhaqaale horumarku ma aha aqoon kale horumarku waa dastuur iyo in lagu dhaqmo misaalan rabaa inaan idin siiyo Iraq xilligii Saddam Hussein dawlad daciifa ma aha dawlad xoog badan maxay u burburtay dastuur kama jirin dastuur lagu ma dhaqmo jirin Suuriya waxay ka mid tahay adduunka meelaha civilizationka ugu horeeyay ka mid maxaa ka jira maanta ma aqoon la'aan haysa ma thaqaafa la'aan haysa ma dhaqaale la'aan hayma mushkiladu waa mushkilad dastuur wahalu majarra annaga waa run dad masaakiin aan nahay laakiin waxaan naqaanaa danteena waa soo dhibtoonay 30 sano dhibku soo jirnay ma rabna inaan u laabano waxaan rabnaa buugaas yar oo noo yaala inaan ku kala dambayno marka madasha waxyaabay u istaaganta waxa waaye sarreynta dastuurka maanta madaxweyne farmaajo dalka madaxweyne ka waxaan rabnaa inuu hirgeliyaan rabnaa oo sharaf ku qaato dastuurka oo la garab maro sharaf lagu ma keeni karo nuqdada saddexaad waxay tahay doorashooyinka marka siyaasadda doorashadu ay soo dhawaato haddaan la helin aragti siyaasadeed ee dadka siyaasiyiinta ay ku midaysan yihiin dalku wuxuu galayaa fawda ma naqaano ilaa hadda doorashada soo socota wax lagu galay dhinaca dawladdu waxay leedahay kulay inaan maqashana u maleynaa one man one vote inta laga sameeyay one man one vote labadiisi ma la qaaday amnigi ma la sugay dadkii ma la tirakoobay sharciga ma la ansixiyay wax la isku waafaqsan yahay ma jiraan mase sida gudoomiye Usmaan oo sheegay koox la yiraahdo wadaniina inta la arooriyo doorashada galay annagana waa amirayna waxa u maleynaa in intaas ka weyn we never accept that waxa la rabaa dawladdu indhaheeda inay furto doorasho laga wada tashaday oo lagu heshiiyay in dalkan ka dhacdo sababta aan leeyahay waxay tahay wixii loo diray ma fulin dawladdu waxa laga rabay dalka in la xoreeyo al-shabaab laga xoreeyo dalka la tirakoobo doorasho sidaas lagu galo ma la sameeyay lama sameeyay annaga dariiqyada luqluqa ma aqbalayna waxaan aqbalaynaa dariiq cad dalkan iyadoo duruufta intaan ka aragtaa doorashooyina la soo qabtay waa lagu heshiiyay madaxweyne xasan sheekh waa kana saldhig maxaad meesha booliska oo doorashada lagu qaban jiray iskool booliisiya annaga dhana doorashada ma lagu qabanayo maxaa yeelay taliyaha booliska waxa uu dhahay madaxweynaha ku taageerayna dadka dhan madaxweynaha hadda jooga kamid ahay asa kamid ahay ha marka wax mugdi ku jira ma qaadanayna annaga dalka doorasho u taaganahay inaan tartanaan rabnaa laakiin waxaan rabnaa wax aan ku tartami karno inuu madaxweynaha la yimaado isaga dawladdiisa markaas waa la fahmaa umaleena colaad ma jirto waa accept garayna marka la doorto garbahan ka istaagna masaga noo yeerto hal taageeraan masaga naga codsaday
qof kastoo ka soo horjeeda waxaan dhijirnaa madaxweyne aan ku keenno war u kaadi madaxweynaha 4 sano ha dhamaysto ma jirto shakhsi ma aha qabiil ma aha waxaan rabaa si kaliya inaan u ilaahdo waxa waaye system dawladnimo oo Soomaaliya ay leedahay qof walba Soomaaliya waxaan rabnaa inuu dareemo dawladda inuu dawladdiisa tahay dhibaatooyinka shacabka lagu haayo jidadka la xiray iyo harassmentiga socda waxaan rabnaa dawladdu si degdeg ah inay wax uga qabato waxaan ognahay saxafiyiintii Soomaaliland waa la xiray Soomaa maxaa lagu xiray dad mudaaharaad ay soo tabiyeen Soomaa xuquuqda saxaafadda xorriyadka saxaafadda kuwa kale waxay ku xiran yihiin baydhabo waxay u xiran yihiin dawladda ma aha maamulka inuu xiran yihiin xogta hayna waray tabiyeen dad odayaal ay sheegeen ilaa hadda waa ku xiran yihiin maxay ku xiran yihiin dalkan wuxuu u dumay cadaalad darro ma aqbaleen inta aan noolnahay cadaalad darro nafteena kama ogolaanayno qof kalena kama ogolaanayno waxaan rabnaa taas inay aad u fahamto dawladda sharaf qof madaxa waxa ugu filan inuu cadaalad sameeyo ilaahay in loogu dhawaado wax ka muhiimsan maanta la joogo cadaalad ma jiraan war dalkan cadaalad darro burburisay dadkan waa ku soo baxeen waa ku taageereen xoolo kuma bixin waxa ay rabeen dawladnimo ahna kugu taageereen dawladnimada isweydi dalkan siyaa xukuma horta wixii dhaca waxa lagu leeyahay madaxweynuhu ma oga yaa xukuma dalka annaga ninka madaxweynuhu yaa ku wareejisay adiga dalka madaxweyne anna madaxweynaha la xisaabtamayna dadkan kale hoos laga sheegaayo shaqo kuma leeyahay annaga qodobka afraad maray Soomaa qodobka afraad waxa waaye raga iga horeeyay laakiin inaan sii bayaaniyo rabaa nidaamka federaalka المسلمون على شروطهم Soomaalidu intay isu tagaan aniga kamid ma ahayn madaxweyne Xasan kam intaan qof joogo kuma jireen bagaati intay isu tagaan waxay soo doorteen nidaam federaal aniga dadkii diidana kamid ah nidaamka federaalka qabo raabish way kan ma fiicna laakiin dadku waxay ku heshiiyeen bedeli karto heshiis waxa lagu jibi karaa heshiis kale nidaamka federaalka hal ixtiraam waa ognahay waxa dawladdu ay ka wado maamul goboleedyada ka ra'yi duwan in la kala ra'yi duwanaado dawladnimada ka mid أنا waxaan aaminsanahay dawladdan aad u nasiib badanta waxaan xasuustaa shirki koobaad ee lagu qabtay London ee dawladda iyo maamul goboleedyada loo qabtay maamul goboleedyadu si aan caadi ahayn u taageereen dawladda waa garab istaageen dhabarkiisa joogsaday madaxweynaha kalsoonidii ay siiyaan maanta xagee maraysa kuwa aamusan xanuun ila aamusan waa huba shaki xataa iyaga ma jiro kuwa kalena waa cadeystay waxaan walaalo waxaanu shaqo ma hay jooji أنا مدحوين حسن وحن جوبجوج هنا شركة جروة ولقول إحدى حادنا مدحوينها يوم مدحوين قبلتها فرصة ذهب يا ميسك الله صار ما أنت ما شعرك تمرسها وحمرسها ما أنت إن لقى أبابلو مظاهرات بطلان هي جبلان والله عقد قرن كم حاول بحنا سامع شاس مدحوين ما حلو قبها مظاهرات لأبابلو وأكل رأي دبنتي نسوي ماذا فريسة شيء that's all hawsha intaas waa ka sii dheerta hawsha intaas waa ka sii dheertahay aniga waxaan rabaa inaan aad u cadaado saraaxan rabaa maanta aniga ma la socotiin ciidamo ajnabiga in Axmedowna la rabo in lagu soo qabto ma la socotiin hadda ka hor markii oo doorashadu dhaceysay soo lama socotiin billaahi calaykum arintaas dhici lahayd maxaa dhici lahayd dagaal qabiilan weligiis dhamaana dhici lahayd boqol jirsada ma idin la tahay inaan ka aamusi karno kama aamusi karno farmaajo Axmedow waa ismayn qabiilnimo aniga to be clear masaqaf warka qaba jira laakiin dawladdu inay awoodeeda diblomaasiga u adeegsado inay qof kala aamus ma la aqbali karo wax la qariyo waxa la yiraahdaa quruna ku jira ma qarneen banaankan la taagana xisbiyada qaran ee halkan isugu yimaaday waxay ka hadlayaan waa xuquuqda iyo xurriyaadka dadka xuquuq siyaasiya xuquuq nololeed xuquuq dhaqaale wama ila dhalik dalkan magaalada muqdisho dhaqaalaheedu waa dumay muxuu u dumay meel walba waa la xiray min akhyaaraha dadka ugu waaweyn aantu yimid xornimo waa lugay aniga maxaa dhacay baabur meelan ku wada male
hogaamiye kooxda markay joogeen iyo hadda dadku waxay leeyihiin hogaamiye kooxda markay joogaan afcinaad waxa laga yaabaa marka qaar inay istiraadin waa mubaalaqa ma mubaalaqa dadka ay sheegay maxaa yeelay dhaqdhaqaaq la ogol yahay jiray oo lala noolaaday dawladdii aan gacmaheena ku dhisnay waxa soo dulmiya dadka inay ku sameeyso aan ka aamusno annaga dambi nagu naqay arrintu madaxnimo doon ma aha kursi ka riixasha ma aha qof nacayb ma aha qof jacayl ma aha waa ilaalinta dastuurka oo dawladdu ay ku dhisantay that's all marka waxaan rabnaa Soomaaliya nahay mas'uuliyadda Ilaahayna saaray qof walba wax garad inaan wada dadaalno dhalinyarada aan hortaagan oo wiilasha gabdhaha leh khatarta ayaga u horeeya meesha xabadda ku dhacaysa ayaga taga jidadka ayaga jira haddana maanta xorriyadooda waa waayeen askartii dalkan u soo dagaalantay mid la arkaba wixii la rabaa lagu sameeyay aydoon sharciga loo maray yaa sameynaa dad shala markaan waxa dhacayeen guryahooda jooga oo shaqaysanaya ilmahooda la jooga cadaalad miyaa waxaas qof kastoo dalkan wax ka soo qabto waxa la yiraahdaa tuug waay waranaga tuuga maahin dad sharaf lahaanahay dalkaana u soo shaqeynay haddana waa u taaganay maamul wanaagi waxba noo akhriyaa hadda hanti dhowraha guud muxuu soo saaray markii ugu dambeysay marna wuxuu soo saaray umlana 40 milyan 42 marna 18 jihaaskii dawladda ka shaqeynaya inta soo saara inta aan la ogeeyna tirada ka badan Soomaa annaga waxa aan rabnaa asal ahaan maamul wanaag waa mid aan ka hadlaynaa maamul wanaag ah waxaan rabnaa marka waa run dawladdu culays waa haystaan laakiin gaabisa jira waxay ka gaabisay dariiqi saxda ahay oo dawladnimada waa ka leexatay dawladnimada ma raba inaan dhexda dhigo aniga muxuu yahay dariiqaas waa ilaalinta dastuurka waa ku dhaqanka dastuurka oo hadaan dastuur ilaalina maxaan ku wada joogaynaa shalab ilmaadeeran ku wada joogi jirnaa matiyan ku wada joogaynaa Soomaalidaanu qabiil waa ka soo daashay waxay rabaan dawladnimaduna waa inay ahaataa mid wixii lagu heshiiyo ku qotonto inay ahaataa loo baahan yahay marka waxaan rabaa inaan idhaa madasha xisbiyada qaran albaabkeedu waa furan yahay على مسرعه وفرنيه wax shakhsiya kama hadlayna waxaan ka hadlaynaa wax qaran arintaas ma cado xalaad ma qabno laakiin mabaadi ana waxaan aaminsannahay qofka Soomaaliga inuu xuriyo inuu waajibta qofka dambi gala sharciga ayadeenayo mararka qaar waxyaabaha dhaco khatarta waxa kamid ah madaxda dawladda qol aan shaqo ku leen dadka inay xirto dadka in la xirso lagu xiraa waxa lagu xiraa qofka inuu dambi galo hay'adda shaqada kulada ay soo aadayso xeer ilaalinta qofka xiris maxkamadda xiris aan dhaho xeer ilaalinta aadaynaysa yaa xiraaya maxkamadda xiris qof la iska xiri kara ma jiro hadii dawladnimo laga hadlaayo hadii loo noqonayo tii hore oo nin walba ninka ka xoog badan xirto wax kala way taas ka hadlayna anaga taas waxyaabaha ka dhaca dalkan ay kamid tahay dawladda awoodeedii iyo hantidii qaranka waxaan aaminsanahay inay u sakharto dad inay ku caaydo Facebook wiilal iyo gabdho guriga jiifo oo Yurub iyo Mareykan laga keenay oo dadka caayay maxaa u sameynaysaa waxaas dawladnimo ku imaanaysaa waxaas ma ku imaanaysaa mase u malaynaysaa caay inuu la jooji karo abadan waxay kamid tahay habka dictatornimada kamid tahay qofka in la cabsi geliyo in sumcadiisa la dilo in la ciriiriyo in la handado qaar la wararo guriyahooda lagu wararo iyagu habeen joogan sax wala la dawladdu dariiq kale ay martamo weys Cabdiraxmaan waxa ku filnaa Cabdiraxmaan waxaana gashay xaraaleynta loo geeyay maxkamadda loo geeyay maxkamadda tag easy wakaratan Soomaa billahi alaykum ku fikirtaan warigan waxa ka dhala kara arintaas dawladdu waxa ay sameynayso waxa ka dhala kara kama fikirto arintaas waa arin khatar madashaanu waxay u taagan tahay waa dawlad wanaag waa dawlad dhisid waa midan shacabka Soomaaliyeed inay tilmaanto dariiqa saxda ee ummadana ay ku guuleysan karto
inay tilmaanto dariiqa khatarta oo ummadan ay dhibka ka soo gaara shalay maanta inaysan ku laaban waxaan rabaa inaan uga faa'iideysto fursaddan inaan u tacsiyeeyo dadkii ku waxyeeloobay ama ku dhintay ama ku dhaawacmay ama hantidooda ku waayay ama ku barakacay fatahaadda webiga Shabeelle gaar ahaan magaalada Beledweyne iyo magaalooyinka kale ee dhibaatadu gaartay inta dhimata Allah naxariistaan leenahay inta dhaawac wax ku gaarana ku dhaawacanta Allah caafiyo inta ku hanti beesha Ilaahay meel khayr wax ka siiyo dadka Soomaaliyeed ee cid kasto wanaaga jecelna ha caawisaan leenahay waa mudan yihiin maanta waa walaalaheen dhibaataysan oo kalmadeena u baahan ayagana Allah ka gacanta Ilaahay yaa buuxday Allah ku deeq ayagana insha Allah tabaaraka wa taala mar kale waxaan ka mahad celinayaa runtii sida wanaagsan iyo dulqaadka iyo kartida bahda saxaafaddu ay khatarta ugu bareertay habeen iyo maalin marxaladaha adagoo aad soo marteen waxaan idin rajaynayaa guul waxaan rabnaa in adunkuna xur aan naqatiin anagu aan xur naqano qof kasto Soomaali xur u ahaado waxa sharcigu siinaya bas wax kale ma jiraan waa mahadsantiin. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh.